السلام عليكم وعن oo wanaagsan ku soo dhawaada casharka labaad ee barashada muuqaal hagaajinta. aan soo kicino programka Filmora anagoo double click ku dhahayna kadibna waxaan dalbanaynaa wide screen. qaybtan waxaan ku sharxnay casharkii koowaad. fadlan soo daawo new project ayaa dhihi doona kadibna qaybta interface-ka ama wajiga hore ee programka Filmora ayaan imaan doonaa. okay xogtayda ayaan halkan soo gashanayaa double click ayaan ku dhahayaa kadibna muuqaalka aan raba ayaa dalbanaya kadib open ayaa dhahayaa sidaas waa ku soo gali karaa. waxa kala sameyn karaa inaan right click dhaho kadibna aan dhaho import kadibna aan soo geliyo waxa aan rabo. naqshada saddexaadna waxa waaye inaan folderkii xogta ay ugu jirta aan tago kadibna aan sameeyo drag and drop kadibna halkan ku sii daayo saddexdaas nuucba xogta halkan oo u soo gashan karaa. okay muuqaalka soo qaad halkan keen. okay meeshan waa sharxanay waxa dhahnay timeline waaye. okay waa meeshii aad muuqaalka codka sawirka waxa saariga lahayd waaye. muuqaalkan belede waa kaasaha. okay muuqaalkana raba marka inaan wax ka bedelo. okay tusaale ahaan kale hadda ninkaas baaskiilka wato kale ma rabo muuqaalkayga inuu ku jiriyo waxaan sameey karaa in halkan qaybtan oo preview window-ga aan wax yar gadaal saas ugu sikiyo. okay hadda waxaan sameey karaa playhead-ka ayaan waxaan sameey karaa gadaal u wadi karaa. okay waa isku mid. okay waxa kale sidoo kale sameey karaa inaan qaybtan backward inaan wax yar xoogaa u wado. okay inaan click si yani click aan dhaho. okay midaan ugu fiican macnaha. okay markii tusaale ahaan kale wax yar yani ka qaldan yihiin oo muuqaalkii qaybta iska jari lahayd wax yar ay kaaga dhimanto kale ayaa la isticmaalaa backward ama forward. okay backward ayaan dhahayaa gadaal u wadayaa dhag lugti baaskiilka hadda muuqato. okay dhag way qarsoonto Soomaan kadibna waxa leeyahay cut ayaan taabanaya. okay ama split calaamadaas maqasta ayaan taabanaya. sidoo kale shortcut ahaana maxaa waaye control B. marka control B haday ku fududaana control B taabanaysa hadii kalena maqastaas taabanaya kadib muuqaalkii laba qayb u kala baxa marka qaybtan ma rabo. okay delete okay warka taabana kadib muuqaalkii saas uu ku baxa. okay muuqaalka marka sidaas ayaa lagu kala jaraa. meesha aad rabtid in muuqaalka jirtay tagaysa kadibna calaamadaas oo split ama yani mataqaana control B ayaa taabanaysa kadibna muuqaalkii laba qayb ayuu u kala go'ayaa. qaybta aadan rabinin ayaad waxa sameynaysaa delete ayaa iska dhehaysaa. okay muuqaalkan marka intaana waxa rabaa inaan muuqaal kale ku dhajiyo tusaale ahaan kale muuqaalkana rabaa inaan ku dhajiyo soo jiid kadibna halkan keen. okay hadda playhead-kan aan ka qaado si aad si fiican u aragtid. okay halkan keen labada muuqaal markay isku dhagaan calaamada saas sameysmaysa soo ma jeedid. okay good sidoo kale waxa sameey karaa inaan soo jiido. okay playhead-kan meel kale geeysa u aragtid waxa kale sameey karaa inaan soo jiido kadibna halkan ku sii daayo soo ma jeedid. calaamadaas markay sameysmato yani waxa la wadaa muuqaalka qaybta hore markuu muuqaalkaas dhamaado qaybta kale ay hore ka bilaabanaysa. laakiin hadii hadda meeshan oo kale ku sii daayo gaaba u dhaxayso soo ma jeedid. soo marka meeshaas waxay noqonaysaa madow ay noqonaysaa. hadda si aad u aragtid aan play dhaho playhead halkan keenaya kadibna play ayaan dhahayaa. okay soo ma jeedid gaabkaas marka madow ay shaashada noqonaysaa. laakiin hadii aan ku aadiyo kan meesha uu ku dhamaanayo calaamadaas madowga ah ma soo bixi doonto. okay oo ku aadiso ma jeedid ushaas ay soo bixayso kadib labada muuqaal way isku aadiyiin kan markuu dhamaado kana hore ka bilaabaa yani. okay playhead ka soo qaad halkan keen play marka soo ma jeedid kan markuu dhamaado kana hore ka soo galaayo. marka hadaa rabana kor ka saari karaa hadaa rabana hoosan ka saari karaa oo sidaas isku aadi karaa. okay waxaan rabaa marka muuqaalkan qaybtan dambe inaan dusha ka saaro sawir oo kala rabaa. okay tusaale ahaan kale halkan markuu marayo ayaan waxaan rabaa halkan inuu ka soo baxo sawir. waxaan sameeynaya sawirkan soo qaadaya kadibna halkaas aan geynaa soo ma jeedid meesha aan rabo inuu ka soo baxo geynaa kadib sawirka muxuu soo biyay space weyn u qaata. marka qaar waxa la yaabaa sawirkan in shaashada dhan uu qabsadaba maxaa sameeynaya marka sawirka double click ku dhahaysaa kadib calaamadahaas oo geeso yeelanaa soo ma jeedid kadibna waa jiiday marka. okay kor u jiiday marka sawirka uu yaraado. okay daartid caladu ku yaraado dan sida u kor u jiiday daartid waxa ka jiidi kartaa dhinacana ka jiiday mujida saas u dheeraana daartid saas u jiidaysa laakiin sawirka sida fiican waxa waaye inaad halkaas ka soo jiidid. okay hadii kale dhinacan ka jiidid waxa waaye si yani aan sinayn ayuu sawirka u weynaana oo dhinacan balaca ayuu ka weynaana. hadhow waxay noqonaysaa in hadana kor u jiidid macnaha dhinaca
oo vertical ahaan in haddana ujeedid noqonaysaa. marka mar walba geesahaas soo ma jeedid geeskaasaa kasoo jiiday ama geeskan kale ka jiidi kartaa, marka lacala weyneynay geeskana ka weyney kartaa ama geeskan kale ka weyneynaysaa. si siman ayuu sawirka u weynaanayaa. marka meesha aad dhigaysaa. okay, hadda aan yareyna tusaale ahaan. okay, waan yareeyey halkaan oo kala dhigay. ninka markuu halkaas marayo sawirkaas soo bixi doono. okay, gadaal u celi play dheh. okay, sawirkaas soo baxa. sawirkan marka inta uu shaashadan ka muuqanayo anaa xukumayo. haddaan rabo intaas yarta ah keliya ayaan rabaa inuu sawirka soo baxo, saana u jiidaysaa kadibna halkaasaa geynaysa. soo ma jeedid? marka play dheh, sawirka wuu soo baxay kadibna wuu baxaa. haddaan rabo ilaa dhammaadka sawirka inuu saaraado easy waaye, soo jiidaysaa kadibna dhammaadka ushaas markay kuusoo baxdo ayaa daynaysaa. marka muuqaalku la dhamaana marka soo ma jeedid? soo jiid tusaale kale hadda play headka soo qaad halkaan keen. soo ma aragtid? muuqaalku la dhamaana sawirka. marka sawirka soo saari kartaa. haddaa ratidna okay meeshan okay iska dheh. haddaa ratidna muuqaal dul saari kartaa. muuqaal ayaa muuqaal kala dul saari kartaa. kaba soo qabo. okay, muuqaalkana rabaa inaan dul saaro qaybta hore. okay, soo jiid tusaale ahaan oo kale halkan keen. waxaa laga yaabaa muuqaalka inuu dheer yahay. hadda tusaale ahaan oo kale midkii koraaba dheerba, kan hoose ayaa gaaban. marka waxaan sameyn karaa tusaale ahaan oo kale qayb yar oo kamid ahaan rabaa, soo jiid. okay, waa kaasaa marka soo ma jiid? okay, labada muuqaal marka waxaa kor maray muuqaalkan. okay, marka waxaan rabaa labada muuqaal inaan wada arkaan rabaa. waxaa sameynaa marka hadda daan play dhaho muuqaalkan hoose meesha xeebta ah ma soo bixi doono. okay, soo ma jeedid? muuqaalka kore keliya soo baxayo. marka muuqaalka kore waxaan rabaa inuu soo baxo, kan hoose inuu soo baxa rabaa. waxaan sameynaa kan kore double click ku dhahaa, kadibna waxaan sameynayaa waan yareynaa. okay, sidaas ayaan u yareynayaa. kadibna meesha aan rabaa geyna. haddaan rabo geeskaas gey karaa, haddaan rabo bartamaha gey karaa, haddaan rabo geeskan hoose geyna, meesha raba gey karaa. kadib marka fiiri play aan dhahaa marka soo ma jeedid? waa kaasaa labadii muuqaal way isdul saaran yihiin. marka muuqaalada sidaas ayaad isu dul saari kartaa. okay, qaybta xigta waxaan ku qaadan doonaa qaabka muuqaalka iyo codka loo kala reebo. okay, muuqaal cod leh ayaan soo qaadanayaa, kadibna muuqaalkaa soo jiidayaa, halkan ayaan keenayaa, kadibna waxaan leeyahay keep project settings. meeshan waxaa muhiim ah muuqaalka markii uu codka la socdo oo asoo cod la socdo halkan soo gelisid waxay wada gelayaan traaga ama meesha loogu talagalay muuqaalka. laakiin haddii muuqaalka iyo codka aad kala saartid, codka qaybta hoose ee loogu talagalay codka ayuu imaan doonaa. marka muuqaalkan play aan dhahno cod uu leeyahay. soo ma jeedid? ninkaas alamiteynaya waaye, cod uu leeyahay. codkan ma rabo marka. maxaa sameynaa marka? waxaa sameynaysaa halkan ayaa ku aadinaysaa muuska, kadibna qacan markay isu bedesho ayaa hoos u jiidaysaa. okay, calaamadaas infinite markay kuu soo baxda ayaa sii daynaysaa. kadib muuqaalka wuxuu noqonayaa cod la-aan ayuu noqonaa. soo ma jeedid? wax coda ma laha. qaabkaas muuqaalka codka waa uga reebi kartaa. okay, naqshad kalaa jirta marka oo muuqaalka codka uga reebi kartid. taas waxaa waaye inaad muuqaalka dul imaatid, kadibna aad right click ku dhahdid, kadibna aad taabatid detach audio ayaa click siinaysaa. shortcut ahaana maxay noqonaysaa control alt iyo d ayaa isla taabanaysaa. okay, muuqaalkii marka muxuu subiyey? muuqaalkii taraagii loogu talagalay ku jiriyaa. codkiina intuu imaaday meesha loogu talagalay codadka ayuu imaaday. taraagii codka ayuu codkan imaaday. marka waxaa sameynaysaa codkaa dooranaysaa, kadibna del ayaa dhehaysaa. saasuu uga baxa marka. qaybta xigta waxaan ku baranaynaa maadaama muuqaalkii aan ka reebnay codkii, waxaan rabnaa tusaale ahaan oo kale inaan dul saarano cod anaga aan leenaha. marka waxaa la yihahdaa voice over ayaa la yihahda. dad badan way jiraan muuqaale internetka soo degsadaan kadibna codkooda ay dul saaran. marka voice over ayaa la yihahdaa. waxaad marka taraagana waxaa geynaysaa meesha aad rabtid codkaada inuu ka bilowdo. tusaale ahaan oo kale halkaana rabaa inuu codkayga ka bilowdo, kadib waxaa taabanaa calaamadaas oo microfoonka ah ay ku qoran tahay record voice over ayaa taabanaya, kadibna meeshaas ayaa taabanaa. halkaas markaa taabatid 1 2 3 ku siinaa, kadibna waxaa laga rabaa inaad intaas isku diyaarisid codka aad bilowdid ayaa laga rabaa. okay, hadda tusaale ahaan oo kale waa taabanaa. muuqaalkan waa muuqaal yar oo kooban oo ka hadlayo qaabka loo sameeyo video editingka. koorsadaanu aad ayay muhiim u tahay. okay, meesha aad rabtid markaa geysid okay ayaa taabanaysaa marka. okay, marka tusaale ahaan oo kale hadda codkii qeybaa banaanka aad soo ma jeedid.
okay marka laba nooca sameey karaa in aan saan dhaho tusaale ahaan kale qaybtan saan iskaga jaro oo aan labadooda aan jin iskaga dhigo ama waxa kale oo sameey karaa inaan ka niyad inta dhaho playheadkan inaan soo qaado halkan aan keeno soo mujid halkaas markaa keeno kadib qaybtan ayaan dooranayaa kadibna waxaan taabanayaa calaamadaas naqasta ah kadib qaybtan del ayaa iska dhaha marka way baxdo marka muuqaalkii sidaan ayaa codka loo saari karaa okay fiir tusaale ahaan qaybtan hore wax coda ma lahan codka halkaas oo ka bilaabanaya beli aan dhaho muuqaalkan waa muuqaal yar oo kooban oo ka hadlayo qaabka loo sameeyo video editingka korsa marka qaabkaas ayaa loo saari karaa casharkaani intaas ayuu ku egyahay waxaa inoo ballanaa casharka xiga waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka